kulan wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij aan kaga hadlayo qaabkii ay ku soo barbaartay awoodii Tataarka. qaybtii hore ee barnaamijka waxaan ugu soo hadlay awoodii koowaad ee caalamka oo ahayd muslimiinta. maantana barnaamijka waxaan kaga hadlayaa awoodii labaad. awoodda labaadna waxay ahayd qarnigii 7aad ee taariikhda hijriga horaantiisii. awoodii gaalada ee saliibiyiinta la dhihi jiray waxay xarumo ku lahaayeen galbeedka Yurub, halkaasi oo dagaalo isdaba joog ah ay kaga soo qaadayeen muslimiinta. gaalada ku sugnayd wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaanigu waxay ololo dagaal oo isdaba joog ah ku soo qaadi jireen wadamada Sham iyo Masar. sidoo kale wadamada Spain iyo Portugal, Faransiiska mar labaad waxa ay isku soo bahaysan jireen oo weeraro isdaba joog ah ay ku soo qaadi jireen muslimiinta Andalus. marka la isku daro waxaasi oo dhan isu habarwacasho ah waxaa jiray isgaashaan buursi nasraani ah oo caalamka intiisa kale ka jiray, waxayna ahaayeen isgaashaan buursigaasi mid meel sare maraya dhinaca nacaybka, xasadka, xiqdiga, colaada ay u qabaan dadka muslimiinta. dagaaladii ugu darnaayna waxa ay dhexmari jireen iyaga iyo muslimiinta. isbahaysiyadaasina waxay ahaayeen kuwa ugu caansan sidaani soo socota. nambarka koowaad, Imbaradoriyadii Albizantiya. dagaaladeedii ay la gali jirtay dadka muslimiinta waxay ahaayeen kuwo bahalnimo ah oo taariikhi ah, laakiin waqtigaasi waxay ahayd mid xaalad awood darri ah lafaha ka soo gashay, kana faraxalatay quwadeedii iyo baaxadeediiba. sidaasi darteeda dhinaceeda khatar badan lagama dareemi jirin mar haddii la wada garanayo itaalkeeda Imbaradoriyadani Bizantiya. nambarka labaadna wuxuu ahaa boqortooyadii Armenia. waxay ku taalay bariga Faris iyo galbeedka Turkiga. waxay dagaalo isdaba joog ah la gali jireen muslimiinta, gaar ahaan muslimiinta Salaajiqada. nambarka saddexaadna wuxuu ahaa boqortooyadii Al-Kurji. haddana waa dowladda la yiraahdo Georgia. marnaba ma istaagin dagaalada ay muslimiinta la galayeen, gaar ahaan dowladii Al-Khawaarizmiya. afar, dowladihii nasaarada ee ka talinayay Falastiin, Sham iyo Turki waxay imaaradahani qabsadeen oo ay gumaysan jireen dhulalkaasi islaamka laga soo bilaabo qarnigii 5aad ee taariikhda hijriga dhamaadkiisii. marka uu marayay qarnigaasi 491, iyada oo ay jiraan guulo badan uu ka gaaray Salaaxudiin uuna ku jibiyay gaaladii ka talinaysay Xidiin, Baytul Maqdis iyo dhulal kale oo badan. iyada oo waxaasi oo dhan laga guuleystay, haddana weli waa ay sii jireen maamuladani. iska badaaya marnaba ma joojinin xadgudubka ay ku hayeen dhulalka muslimiinta ee ku wareegsan dhulalka ay haystaan. waxaana ugu caansanaa maamuladaasi Andakiya, Akka, Darabulis iyo Beirut. sidaas darteed ayaa bogcad kasta oo caalamka ka mid ah la isugu haystay oo gaali iyo muslimiin isu hortaagnaayeen, wayna soo siyaadiyeen gaalada dhibaatooyinka ay ku hayeen islaamka. wuxuu Ilaahay doonay inay ciid u ahaato ummadda islaamka dhammaadkii qarnigii 6aad ee taariikhda hijriga, jab iyo halaagna ay u ahaato gaalada. Ilaahay wuxuu idmay dhammaadkii qarnigii 7aad labadii guulood ee waaweynaa ee muslimiintu gaalada kaga guuleysteen. mid waa guushii weyneed ee uu geesigii Salaaxudiin kaga guuleystay goobta la yiraahdo Xidiin ee ku taala cariga Sham sanadka markuu ahaa 583 hijri. waxaa ka dambeeyay 8 sano oo kaliya markii geesigii islaamka Al-Mansuur kaga guuleystay meesha la yiraahdo Araak sanadka markuu ahaa 591 hijri. iyada oo ay jireen labadaasi guulood ee waaweyn, muslimiinta haddana waxaa haystay bilowgii qarnigii 7aad ee hijriga tabardarro dhulka la sintay. sidoo kale waxaa kala furfurmay dowladii Ayuubiyiinta ee isku xirnayd kadib markii uu geeriyooday Salaaxudiin al-Ayuubi. mar kale waxaa furfurmay dabarkii isku hayay Ayuubiyiinta kadib geeridii Al-Mansuur. sidoo kale dhinaca Saliibiyiinta laftooda waxaa haysatay daciifnimo la mid ah kan muslimiinta haysatay oo kale. ma awoodin in ay qabsadaan inta ay ku soo duulaan dal ka mid ah dalalka muslimiinta. haddiiba ay jeclaan lahaayeen inay u dhameeyaan dalalkaasi oo danahooda oo dhami ay ku jiraan, haddana ma awoodin tabardarro darteed. sidaasi ayuu ahaa muuqaalkii dunida bilowgii qarnigii 7aad ee hijriga. iyada oo xaaladda dunida noocaasi tahay, waxaa soo baxday awood cusub oo firfircoon, taasoo bedeshay miisaaniyaddii caalamka, qariiradii caalamkana dhan kale u rogtay.
uguna yeertay nafteeda in ay tahay quwaddii saddexaad ee dunida ku soo korortay amba awood u leh in ay tiraahdo waxaan ahay quwadda koowaad ee dunida horaantii qarnigii 7 ee taariikhda islaamka. Quwaddaasi waa quwaddii dowladdii Tataarka ama Mongolia.